اترك أثرا في دنياك. alla waxa uu ina amray in quraanka sharafta leh aynu akhrino waxaana uu leeyahay warattilil qur'aana tartiila akhri quraanka adiga oo kala dhigdhigaya haddaba akhrinta quraanka la akhriyaya waa in ay tahay mid lagu tadabburayo tadabburna waxa looga jeedaa waa in la dhuuxa macnayaasha quraanka alla subhanahu wa ta'ala waxa uu ina leeyahay kitaabun anzalnahu ilayka mubaarakun liyadabbaru aayatihi walyatadhakkara ulul albaab waa kitaab aanu soo dejinay aan idinku soo dejinay idinka si aad ugu tadabburtaan oo aad u dhuuxdaan macnayaashiisa haddaba aqoon yarida iyo aragtida gaaban ee inaga haysata luqadda carabidu waxa ay inaga dhigtay in aynaan si xeel dheer u fahmin ujeedka aayaadka eebe ama aynu u fahno mararka qaar si aan sax ahayn oo macnayaashoodii aan ahayn inaynu u fahanaa laga yaaba haddaba fiidiyowgeennan waxa aynu ku soo bandhigi doonaa 13 meelood oo ay dadku u fahmaan si khaldan alla subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay wa minan naasi man yashri nafsuhu waxa ay moodayaan in kelmadda yashri ay tahay yashtari soo iibsanaya balse waxa looga jeedaa yabiicu mid iibinaya ayaa looga jeedaa sidoo kale aayaadka sida khaldan aynu u fahnay waxa kamida فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام تدبدا وحا أي خلد كفهمين كلمة السلام سلامة وحا أي هايستان السلام يا بريدة بل سي وحا لوغ تشيدا يستسلموا إنو هقانسمو أو أدي عددك وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون تدبدا وحا أي هايستان كلمة قائلون إن أي تهي قال أو يري balse waxa looga jeedaa qaa'iluun in ay tahay hurdada la seexdo duhurkii la seexdo ayaa la dhahaa qayluula alladheena kadabuu shucayban kaan lam yawnaw fiiha kelmadda yawnaw waxa loogama jeedo dadku inay qani noqdaan oo ay xoolo kasbadaan dadku inay qani noqdaan oo ay xoolo helaan loogama jeedo balse waxa looga jeedaa lam yuqiimu ولم يعيشوا لم يقيموا كمي نغان ولم يعيشوا كماني نولان شن وحكمدا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين وحيدتكم وديان كلمة السنين إن يتهيدا أما عمرك بس وحلو لجيدا أبارتا أيا لوغة جيدا السنين وحكمدا ميرها دتكو سي خلدن فهنسيهين فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث تدكو waxa ay u fahmeen kelmadda tahmil in la saarayo oo wax lagu rarayo isaga balse waxa looga jeedaa in la cayriyo oo la eriyo waxa kamida meelaha sida khaldan dadku u fahmeen iqtulu yusufa aw idrahu ardan loogama jeedo kelmadda idrahu dhulka dhiga balse waxa looga jeedaa in la tuuro oo meel fog la dhigo waxa kamida meelaha sida khaldan loo fahansan yahay wajaa'at as-sayara سيارة لوغما جيدا gaadhigan imika dhulka socday ee lagu safro balse waxa looga jeedaa koox safarleeya hadii ay koox safarleeyeen soo marto ama koox safarleeya soconayso ayaa looga jeedaa balse loogama jeedo aaladan hadda dunida marta xilligaas yaduma jirin قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم كلمة الزعيم dad badan waxa ay u fahansan yihiin inay tahay hogaamiyaha ama madaxweynaha balse halkan loogama jeedo waxa looga jeedaa zaciim magdhow ama kafaala qaadasho ayaa looga jeedaa waxa kamida meelaha sida khaldan loo fahansan yahay walaa tamshi fil ardi maraha loogama jeedo in aad dhulka socon adiga oo faraxsan ama raynaya laakiin waxa looga jeedaa marka aad dhulka soconayso in aanad kibrin waxa kamida meelaha sida khaldan loo fahansan yahay حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينزلون كلمة ينزلون لوغما جيدو النسل أو أهترنتي إني ترمان لوغما جيدو بل سوى لوغا جيدا يسرعون إني دقدقان أو أي سعدان أو أي ديريان وحكم إذا ميراها سيدا خلدان لو فهنسيهي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وحلوغا جيدا كلمة رجالا rag loogama jeedo balse waxa looga jeedaa iyagoo wax saaran ama safara waxa kamida meelaha sida khaldan loo fahansan yahay qaala alladheena kafaruu lawlaa nuzila calayhi alqur'aanu jumlatan waaxida
kelmadda jumlatan dad badan waxa ay u fahmeen in looga jeedo weer keliya balse waxaa looga jeedaa in qur-aanka mar keliya lasoo wada dejiyo